بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى الله سو نسي نعمة الإسلام والإيمان. ثانيا نحن halkan ugu mahad celinayaa maamo Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ku nool oo ma sha Allah ilmaha agoonta maanta ka farxisay. Alxamdulillah sidaad u jeedaan macmacaankan oo noocyadiisa kala duwan ah ayaa loo soo gaday. Marka maamadaas oo maam Faadimo oo wakiilka ah iyada iyo maama Faadimo baqar Ilaaha siiyo muraadkooda Ilaaha u sakhiro dambigood iyo dambaarkooda Ilaaha dhaafo. maama Faadimo iyadana caafimaad taam Ilaaha siiyo maam Faadimo caafimaad taam Ilaaha siiyo maam Faadimo caafimaad taam Ilaaha siiyo. xanuunka hayan Ilaahay kor qaado xanuunka Ilaahay kor qaado. maamadaas oo maanta sadaqadan iyadana soo baxsatay oo maam Faadimo u soo dhiibtay iyadana muraadkeeda Ilaaha u sakhiro awlaadeedana Ilaahay u soo hanuuniyo awlaadeedana Ilaahay u soo hanuuniyo awlaadeedana baar Ilaaha ugu dhigo awlaadeedana baar Ilaaha ugu dhigo. maamadaas iyadana way xanuunsan tahay oo Ilaahay ha caafiyo Ilaahay ha caafiyo caafimaad taam Ilaaha siiyo caafimaad taam Ilaaha siiyo. maam Faadimo idan Ilaahay ha caafiyo maam Faadimo iyo maamada oo sadaqada maanta soo baxsatay labadoodaba muraadadooda Ilaahay u sakhiro siday jecel yihiin Ilaahay ha u yeelo dambigooda iyo dambaarkooda Ilaahay ha dhaafo. maanta inaga farxiyaan iyagan Ilaahay ka farxiyo iyagan Ilaahay ka farxiyo dambigooda iyo dambaarkooda Ilaahay ha dhaafo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الإحسان للإنسان منهل غدير العطف من نبع الحنان لجمعية أباء الإشارة كتبناها على حلل المعاني ومنطقة عسير في الريادة. ترحيبة اليباب للسحاب ترحيبة السهول للحقول ترحيبة أندى من الزهور ترحيبة أشدى من الطيور يا مرحبا قوافل الضيوف ترحيبة بأحسن الوصوف يا مرحبا من جمعية الأيتام إلى الكرام من بني الكرام. جمعية تتابع الترحيب عودا يفوح ريحه وطيبا واليوم في مجيئكم تباهى وشاع من سمائها سناها. جمعية تبنى من التكاتف قد توجت عنوانها تراؤف وتحتفي المساء ذا احتفاء بكل طالب بها وفاء. ترحيبة اليباب للسحاب ترحيبة السهول للحقول ترحيبة أندى من الزهور ترحيبة أشدى من الطيور يا مرحبا قوافل الضيوف ترحيبة بأحسن الوصوف يا مرحبا من جمعية الأيتام. بالإحساس تسأل وبوح القلب يرسمه لساني من الإحسان للإنسان منهل غدير العطف من نبع الحنان لجمعية أباء الإشارة كتبناها على حلل المعاني ومنطقة عسير في الريادة تزف لنا تباريخ